loolan culus ayay ugu jiraan saddex dowladood oo ka mid ah dowladaha dunida sida weyn uga tilmaaman xagga quwadooda sanadba sanadka ka dambeysana horumar ballaaran ka sameynaya xagga quwadda military inay maamulaan garoon caalami ah oo isha caalamka ay si weyn ugu sii jeedo. dowladaha Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Turkiga ayaa hardan adag ugu jira sidii midkood uu la wareegi lahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Xamiid Karzai oo ku yaala bartamaha magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Imaaraadka Carabta dhankooda markaynu eegno waxa xoguhu ay tilmaamayaan in ay iyagu ugu badan yihiin dadka loo saadaalinayo inay la wareegi doonaan garoonkan maamulkiisa si weyn ay uga macaashi doonaan, iyagoo xiriir wanaagsan la leh xilligan kooxda hubaysan ee xukunka la wareegtay ee Taliban. wararku waxay tilmaamayaan in hoggaanka sare ee maamulka Taliban ay si toos ah xiriir ula sameeyeen saddexdan dowladood, isla markaana ay ka dalbadeen in midkood uu ku dhaqaaqi karo waxyaabaha iyagu ay doonayaan ee horumarka ah ee la doonayo in lagu soo kordhiyo garoonka Karzai. dowladaha Turkiga iyo Qatar waxaa la sheegay in iskaashi ay samaysanayaan si ay meesha uga saaraan dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan sidoo kale ku soo biiri kara qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo iyaguna u arka faa'iido badan inay ka heli karaan haddii ay maamulaan muddo sannado ah garoonkan. kooxda Taalibaaniyiinta ayaa u arka in iyagu aysan sii maamuli karin oo aysan dhaqaale badan oo ay ku horumariyaan lahayn garoonka. sidaa daraaddeedna tan iyo markii isbeddelka uu ka dhacay, Turkiga, Imaaraadka iyo Qatar waxay kordhiyeen garab istaagga ay u muujinayaan kooxahan hubaysnaa ee la wareegay talada, halka sidoo kale dadka qaar ay leeyihiin dowladda Imaaraadka Carabta haddii ay la wareegto garoonkaasi waxaa meesha ka bixi doonta fursadaha dhaqaale, kuwa siyaasad iyo kuwa kale ee muhiimka ah ee diblomaasiyadeed ee ay Qatar iyo weliba Turkiga la yeelan doonaan Afghanistan.